وحول الصحابي قال يراهدو أبو أمامة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اسعد. وحول رسولك عليه الصلاة والسلام أنيقو هردا وحي يمين لبنين waxay leeyihiin suurada ragga laakiin waa malaa'ig labada cududood bay qabteen waxaanay igeeyeen meel buura oo aad raf u ah waxaanay igu yiraahdeen buurtan kor amarkoodii baan qaato buurtii baan koray xataa idaa kuntu fi sawaa'i aljabal ilaa aan gaadhay buurta dusheedii فإذا أنا بصوت شديد وعن هالكاسي كما غلي نواقي صوحا آدو الدرن فقلت ما هذه الأصوات وحن روام حي نواقي يدا هي صوحا كان ماشا كبحيا قال هذا عواو أهل النار مدكم إذا يا أتشواب وحكول رسولك ووراقي كبحايا أهل النار naartu markii ay xanuujisay qayladii iyo waraaqi ka baxay way dhawaaqa aad maqlaysaa thumma intalaqa bi horaan si soconay buu dhaw ila dhaqaaqay fa idha ana biqawmin mu'allaqin bi'araqibihim mushaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum dama waxaan ku soo baxay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam qoliyo la soo laalaadshay oo inta boqonaha laga dalooliyay ayaa boqonaha meel sare loo soo suray madaxoodina xagga hoose loo soo jeediyay qowlaladooduna waa dhaawacan yihiin oo waa dilaacsan yihiin dhiig ayaana ka qubanaya oo ka dareeraya faqultu man haulaa وحن يقول رسولك عليه الصلاة والسلام كوني نوايو فقيل هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم كواسا الله عقابين للدلدلي قول لذن الله تشاحي ديقنا وكقل قليا وكويا فوري تشري انتي ان لقارين نماتك الصومك واختيا فورك حلال ونقناي حديث كوادير يا أنت سيا كخصيصة درسين إمام النسائي ابن خزيمة ابن حبان يباوريه وأنا حديث صحيح وأنا حديث كانوا تلماما يا عقاب كادك اللوغو قودية يقف كافورا مالي رمضان يدو صمكوا تبي عذر دارلان وحانو حديث كعديي إن أرنتا سكمتها هي أسباب عذاب القبر وقبر جيسا لقوا عذابيا وفي كمال رمضان عذر دار لان أفره مال رمضان أفريتان كيد عذر دار لان لا أفره ومدوح كبي كراني تشيرين إلا التوبة النصوح والإكثار من النوافل قفكينو توبت كينما يرى توبة دبا سنة ياشرة وفربدية صوم كسنها si loogu buuxsho meeshii uu baneeyay bal waxa uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaan u jeedaa cabdullaahi ibnu mascuud radiyallahu canhu أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزيه صيام الدهر قف كمالين بشهر رمضان كمدا سيو كسع عذر دار لان اسكافره haddii sanadka oo dhan uu soomo oo yiraahdo maalintii baan qalleynaya inaan soomkaasi aanu ka gudahayn oo aanu u buuxinahayn meeshii maalinta cudur daar laan waa furay qoomka sida loo cadaabay balaag wadadii saxda ahayd bay mari waayeen sooma baa la yidho si saxa u socda kutiba calaykum as-siyaam
wadada waa ka leexdeen oo mid khaldan bay mareen waxa lagu ciqaabay in iyagiina la foorariyo la daldalay lugoodina xagga sare la mariyay inta boqnaha laga dalooshay oo laga xidhay madaxiina xagga hoose la mariyay afka ay xaaraanta ku cunayeen ciqaab gooniya baa ku dhacay waa la jeexay dhiig baana ka qubanaya taasina waxay tusinaysaa foolxumada ay leedahay in maalin Ramadaan qof soom ku waajibay cudur daar la'aan wuxuu iska cuno ama base uu wax cabo hilibka qofka kaga soo baxa xaaraanta maalinta Ramadaan uu baxayo uu cunayo waxa sugaysa naar rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri isagoo la hadlaya saxaabiga la Kacab ibn Ujra أيما لحم نبت بسحت فالنار أولى به هلب كاستوقف كحاران يبولي كجبحة نار يا أم ذنين عنتو والسوقيس